Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada summit.com ee laga barto cilmiga kombiyuutarka. Waxaan kusoo jirnay duruusteennii taxanaheed oon ku baranaynay video editing ama hagaajinta fiidiyoyaasha qaybta Sony Vegas. Darsigeena maanta waxaan ku qaadan doonaa qaabka wax loogu bedelo ama qaabka wax looga bedelo settingka barnaamijka Sony Vegas aan qaadan doonaa darsigeena maanta. Waa cashirkan waa part 1 ama qaybtii koowaad waxaan ku qaadanaynaa qaabka wax looga bedelo settingka Sony Vegas. Barnaamijka hadda saan ayuu noogu kacsan yahay. So marka wax yar ayaan ka bedeli doonaa ama wax yar ayaan ka taaban doonaa. Waxaan imaanaynaa option meesha ay ku qoran tahay, kadibna waxaan ka dooranayaa preference. Settingka marka qaab noocan ayuu hadda kuugu soo kacaya. qaybtan waxba kama bedeleyno waa generalka waxba kama bedeleyno sidiisa ayaan ku daynaynaa. Waxaan imaanaynaa qaybta ay ku qoran tahay videoga asina wax waan ka bedeli doonaa. Waxaan ka bedelaynaa qaybtan ay ku qoran tahay dynamic RAM previewga. qaybtan ada hadda sidaan kuma ahan, ana hadda waxa ii 14 GB waa RAM-keyga 14 GB baa ka dhigtay. Total marka GB-geyga RAM-ka waa 16 GB RAM-keyga waaye, laakiin aniga waxaan ka dhigtay 14 GB 2 GB aan iska dhaafay. 2 GB kale waxaan u dhaafay barnaamijyada kale inay isticmaalaan. So marka ada hadii uu kugu jiro kale RAM-kaada hadii 8 oo yahay ama 4 haduu yahay 2 GB camal barnaamijyada kale u dhaaf. hadii 8 uu yahay 2 GB waxa u dhaafta barnaamijyada kale, 6 kale ha isticmaalo barnaamijka Sony Vegas. Hadii 4 uu yahay waxaad isticmaashaa 4taba sidiisa uu isticmaal ama waxba qaybtan dham sideeda default-iga ku deyso. Okay, qaybtan videoga wax kale kama bedeleyno. Waxaan imaanaynaa qaybta ay ku qoran tahay display-ga marka waa qaabka uu soo muuqanayo. Hadda barnaamijkayga wuxuu ku kacsan yahay madow buu ku kacsan yahay, waa sida default-iga uu ku yimaado. waxaad ka dooran karaysaa medium oo maxaa la raahdaa gray ama dameeri oo tiqa ama dameeri maxaa la raahdaa cadeesa ama kan marka waa cadaan, white-ka ku qoran tahay waa cadaan, light-kana waxa waaye adi dameeri oo waxa waaye dameeri biyaha waaye, kan kaleetana ku xigana waa white waa cadaan caadi waaye. So marka ka jecesha dooranayna ana hadda marka waxa baraaweynayna kan cadaanka ayaan baraaweynayna. Waxa leenahay marka apply ayaan leenahay. Marka waxa ku soo bixi doona dialog box noocan ah ku soo baxay. Marka wuxuu ku leeyahay waxay tahay hadii aad ka bedeshid settingkan wax kamid ah hadad ka bedeshid restart waad inaad ku sameysaa barnaamijka aad xirtaa dibna aad u soo kicisaa. So marka waxa leeyahay okay ayaan leeyahay, kadibna okay ayaan leeyahay. So marka dib ayaan u soo kicinaynaa barnaamijka. Hadda close ayaan leeyahay waan xirayaa, kadibna dib ayaan u soo kicinayaa barnaamijka. Okay, marka waxa u jeedaa barnaamijkeena inuu isku bedelay kala cadaan inuu isku bedelay ayaa u jeedaa. Awalka hore madow ayuu ahaay cadaan ayuu isku bedelay. So marka adiga kalarada halkaas ka bedeli kareysaa. Waxaan imaanaynaa option ayaan imaanaynaa, kadibna waxaan ka dooranaynaa preference. intaan kale waxba kama taabanayno. sidoo kale waxaan imaanaynaa qaybta videoga ayaan ku soo laabanaynaa. qaybta videoga ayadana waxaan rabaa in meeshan ay ku qoran tahay qaybtan ayadana waa muhiim qaybta GPU-ga oo maxaa qaybtan marka video editing ayadana waxa ka bedelaynaa sidoo kale qaybtan GPU ama processing ay ku qoran tahay waan soo furaynaa. hadda waxa inoo saaran GPU inoo saaran waa Intel, waa kan hadda computerkan igu jira. off waad iska dhigi kareysaa ama asiga dhan waad iska xiri kareysaa. Marka hadii aad aragtid shaashadan maxaa la raahdaa in culays videoga markuu kugu jiro kale culays xoogaa ka dareemtid oo kale offna waad dhigi kareysaa. hadii off aysan ku ahayn oo ku dooran yahay maxaa la raahdaa Intel ama Nvidia hadba GPU-ga computerka kugu jira off ayaad iska dhigaysaa. hadii off oo ka ahayna dooro maxaa la raahdaa GPU kugu jiro computerka, kadibna apply dheh okay dheh, kadibna maxaa la raahdaa dib u soo kici. sidoo kale tana qaybahan kale waxba ma ka bedelayay sideeda aan ku deysanahay. hadii marka wax qalad aad sameeyay sidoo kale ama waxyeelada barnaamijka ku aragtid oo kale default all ayaa dhihi kareysaa dib igu soo celi wixii dhan sida hore barnaamijka lagu keenay igu soo celi ayaa dhihi kareysaa, kadibna apply ayaa leedahay, kadibna okay ayaa leedahay. So marka sidoo kale waxaan rabnaa maxaa la raahdaa qaybahan qaybta preview-ga ama qaybta shaashada waxaan rabnaa inaan ka bedelno ayadana
toolskan yararka uu leeyahay. qaybtan saddexdan falaarood ayaan ku dhufanaya kadibna waxaa ujeedaa tools kale baa meeshan kusii jira. So marka waxaan ka doornaa in waxay ku qoran meeshay ku qoran tahay edit visible buttons ayaan ku dhufanayaa. Click ayaan ku siinayaa. Okay, hadda marka waxaa ii dooran play, pause iyo stop baa ii dooran. Waa saddexdan oo kaliya ba hadda ii dooran. So marka waxaan leeyahay sidoo kale waxaad ii soo doortaa loop playback, sidoo kale waxaad ii doortaa play from start, sidoo kale waxaa ii soo doortaa waxaan leeyahay go end, intaas ii soo doorayaan leeyahay. kadibna waxaan leeyahay okay. So marka qaybtan meeshan kalena waxaa ku haysataa laba qayb ayaa ku haysataa. waxaad dhihi karaysaa show all, dhammaan ii soo wada bandhig, ama waxaad dhihi karaysaa hide all, dhammaan iiga wada qari, uma baahni. labada baad isticmaali karaysaa, ama dooqaada midka ratid ayaa dooranaysaa kadibna waxaad leedahay okay. marka waxaad ujeedaa dhammaan inta hadda aan soo dooranay inuu intuu noo soo koray. sidoo kale qaybtan ayadana waa bedeli karaysaa toolska meeshan ku jira. waxaan imaanaynaa meeshay ku qoran tahay option, kadibna waxaan leeyahay custom timeline toolbar meeshay ku qoran tahay ayaan ku dhufanaya. marka mid cusub rabtid inaad kusoo dirtid qaybtan ayaad ku dhufanaysaa, kadibna waxaad leedahay add ayaad leedahay. tusaale hadda kan ugu horeeya ayaan rabaa inaan kusoo daro oo ah new audio track ayaan rabaa inaan kusoo daro. waxaan leeyahay add ayaan leeyahay, wuu kusoo darsamay. barnaamijka marka wax kusoo dartid qaybtan marka ayuu isbedelka ka dhacaya qaybtan hoose ee toolbarka. so marka hadda wax baan ka tiraaya. awal waxaan dhahaynay add ayaan leenahay hadda laakiin waxaan leenahay remove ayaan leenahay. waa ka masaxina, waa ujeedaa marka qaybtan uu ka baxay. so marka play waa kana ayadana waxaan leenahay remove. waxaa ujeedaa inuu ka baxay play inuu booska ka baxay ujeedaa. soo kale waxaan leeyahay booska ayadana iga bixi aan leeyahay remove iga dheh. soo kale stop waxa iga dhahdaa remove aan leeyahay. soo marka waad ka saari karaysaa inta rabtid, waad ka saari karaysaa. haddii marka aad rabtid sidiisii hore inaad ku soo celisid, waxaad dhihi karaysaa reset ayaad dhihi karaysaa. hadda playga waxaan rabaa inaan kan ka hormarsiiyo oo qaybtan kale aan keeno. soo marka playga ayaan ku dhufanaya kadibna waxaan leeyahay move up ayaan leeyahay. waa ujeedaa waan ka hormarnay. playga hadda wuxuu ku jiraa qaybaha ugu horeeya, wuxuu ku jiraa saddexda ugu horeysa ayuu ku jiraa, waliba kan saddexaad waaye. so marka waxaan geenayaa fiiri kan ugu horeeya ayaan ka dhigayaa playga move up ayaan leeyahay. okay, waa ujeedaa waa qaybta ugu horeysa ayuu imaaday. reset ayaan iska leeyahay kadibna close ayaan leeyahay. uma baahni inaan sidiisa defaultiga ayaan ugu baahanahay, waxba kama bedelaye. soo kale option ayaan kusoo laabanayaa. waxaan leeyahay qaybtay ku qoran tahay customize toolbar. toolbarka asigana waa qaybtan ay ku qoran tahay qaybtan waaye oo toolska ay ku jiraan. tools badan meeshaas laakiin kuma jiraan. soo marka hadda waxaan kusoo darayaa save as ayaan kusoo darayaa. waa ujeedaa mid cusub ayaa hadda kusoo darsamay. sidoo kale waxaan kusoo darayaa new project inkastoo igu jiro uma baahni new project. waxaan leeyahay sidoo kale waxaa kusoo dartaa capture video igu soo darayaan leeyahay. waa ujeedaa wax walba kusoo darsamay qaybtan ay imaan doonaan. soo marka tools badan baa inta ku jira. nooca rabtidaad marka inta kasoo dooranaysaa kadibna add ayaa leedahay. soo marka rabtidna in qaar kamid aad ka saartidna waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale save as uma baahni inay meesha ku jirto, remove ayaan iska leeyahay, waan ka saarayaa. soo kale qaybta capture-ka ayadana remove ayaan leeyahay, uma baahni, waa iska saarayaa. haddii marka aad u baahatid sidiisii hore defaultiga aad ku soo celisidna reset ayaad dhihi karaysaa. haddaad u baahantahay in kan aad ka hormarisid maxaa la rahdaa propertyga kan ugu horeeya haddaad rabtid inaad ka dhigtid oo kale waxaad leedahay move up. waa ujeedaa propertyga kan wuxuu noqday kan ugu horeeya ayuu noqday. soo kale haddaad u baahantahay kan ugu hooseeya inuu noqdana waxaad leedahay move down ilaa oo ugu tago midka ugu dambeeya oo ka tago. soo marka waxaan leeyahay reset ayaan leeyahay sidiisii hore ugu soo celi, close ayaan iska leeyahay, waan iska xiraaya kana. uma baahni inaad wax ka bedelo, defaultigiisa ayaan u baahanahay. okay, soo kale waxaan u baahanahay option ayaan leeyahay. waxaan imaanayaa sidoo kale customize keyboard ayaan leeyahay. qaybtan marka waxa waaye waxaad ka bedeli karaysaa shortcut. tusaale hadda trimka oo kale waa control T. waxaa ka dhigaynaa bal fiiri, waan ka bedelaynaa meeshan. waxaan leenahay control 5 ayaan leeyahay. haddaysan jirin wuu qaadanaya, laakiin hadduu jiro ma kaa yeelaayo. waxaan leeyahay replace ayaan leeyahay, wuu qaatay. marka trim haddaan rabo inaan isticmaalo control 5 ayaan isticmaalayaa. kan hadda waxaa ku qoran control K ayaa ku qoran. waxaan leenahay control 4 inooga dhigaan leenahay. control 4 waxaan leenahay replace inooga dhigaan leenahay. soo marka add markaa dhehaysid waa shortcut cusub. markaa sameynaysid add ayaa leedahay. laakiin markii maxaa la raahdaa
oo mid jiray oo horey u jiray ahay waxaad leedahay maxaa la yiraahdaa replace ayaad leedahay dib igu celi. So marka qaab noocaas marka u bedbedelaysa qayb kamid ah daartid inaad ka saartidna waxaad dhigi karaysaa tusaale ahaan oo kale home-ka waxaan rabaa inaan ka saaro ayadana waxaan leeyahay remove ayaan leeyahay waan ka saaraa wax shortikada ma lahan hadda home-ka. Marka qaab noocaas aad u saari karaysaa laakiin waxba ma ka bedelayno sidiisii hore ayaan ku soo celineynaa. waxaan leenahay cancel qaybtan marka waxaad ogaataa qaybtan waxaad ka bedeshid sideedii hore adiga inaad dib ugu soo celisid leewa ma ahane ma lahan maxaa la yiraahdaa default-iga hore ugu soo celi ma lahan. So marka wax waad ka bedeli karaysaa waxna waad ka tirtiri karaysaa. So marka qaab noocaas marka ayaa looga bedelaa maxaa la yiraahdaa shortcut-ka qaab noocaas ayaa wax looga bedelaa. ana had ma u baahni waxaan iska leeyahay cancel default-giisii hore ayaan ku haystaa ama default-gii hore ayaan rabaa inuu ii ahaado wax ma rabo inaan kusoo kordhiyo waxna ma rabo inaan ka bedelo sidiisii hore ayaan kusoo deysan doonaa. Okay aan usoo gudubno qaybtan kale preview-ga toolskan ka koreeyo waa maxay ayagana. Toolskan qaybtan ugu horeyso waa project video video property-ga waa qaybtan wax waa ka bedeli karaysaa markii maxaa la yiraahdaa oo video aad hagaajinayso sidoo kale ama video aad sameynayso sidoo kale waa dooran karaysaa HD aad ka dooran karaysaa qaybtan hadda daan soo furo calaamadan yar falaartan yar daan soo furo waxa ujeedaa dhammaan inay ku wada jiraan noocyada kala duwanaay ee video-ga maxaa la yiraahdaa ahay hadday noqoto 720 hadday noqoto 1080 ama 1080 ayaga marka kale way kala noocyo badan yihiin marka 4K waa kana HD 720 HD 700 laakiin waxay ku kala xiran tahay frame bay ku xiran tahay waxa la yiraahdo hadda kuwan waxa waaye 25 frame per second waaye frame per second marka waxa waaye tusaale ahaan oo kale halkii second-ba 24 sawir buu qaadi karayaa halkii second-ba marka dad maqashid oo kale 64 frame per second ama 24 frame per second waxaad ogaataa sawirka oo kameradaada ay qaadi karto inuu yahay 24 frame per second ama 60 ama 30 way kala yihiin ayaga kale so marka 60 waa kana tusaale waa kana 60 frame per second 24 na waa kana 25 waa kana soo kale 60 na waa kana waa HD 720 frame per second so marka sidaas ayay marka kala yihiin 60i kaarta marka dooran karaysa anaga marka uma baahan inaan wax ka bedelno wax ma ka bedelayno close ayaan iska leenahay iska xireynaa qaybtan waxa waaye monitor tusaale hadii shaashad kale aad haysatid oo kale ayaad inta dooranaysaa tusaale ahaan shaashad kale hadii ku taalo ama external monitor aad haysatid oo kale ama shaashad kale dheeriya haduu kugu xiran yahay computerkaada kan ayaad ku dhufanaysaa automatically ayay ugu xirmaysaa marka shaashad kale ma haysto waxaan leeyahay exit ayaan leeyahay waan ka baxayaa uma baahni qaybtan waxa waaye video output effect marka waa effect wuxuu saameyn doonaa dhammaan videoyaashaada ayuu saameyn doonaa dhammaan marka project-ga ku kacsan waxa ku jiro videoyaal oo dhan wuu saameyn doonaa ama effect buu ku soo dari doonaa ayadana waan isla arki doonaa casharada xiga markaan qaadan doono waan isla arki doonaa qaybtan ayadana waxa waaye preview-ga waa shaashadan qaabka u soo muuqanayso ma default-iga rabtaa ma draftigan badanaa waxa la isticmaalaa preview-gan badanaa waxa la isticmaalaa kay ku qoranta preview auto waliba kay ku qoranta ayaa la isticmaalaa best waa isticmaali karaysaa full waliba best full waa isticmaali karaysaa full HD waa isticmaali karaysaa laakiin culays buu ka noqonayaa shaashada si fiican u soo muuqanayso video marka aad dhigaranaysid good waa isticmaali karaysaa laakiin badanaa waxaad isticmaashaa kay ku qoranta preview waliba ka dooro auto marka qaybtan ayadana waxa waaye markii sawir aad rabtid oo kale inaad ka qaadid qaybtaas marka ay dooranaysaa snapshot marka wuxuu ka qaad sawir ayuu kaaga qaadi doonaa oo copy marka qaybtan kaleetana waa qaybta aad ka save garan lahayd sawirka adiga aad qaade meeshaad ka save garan lahayd so marka waan isla arki doonaa dhammaan qaybahan kala duwan waxay yihiin iyo qaabkay u shaqeeyaan duruusta xigta ama casharada xigta ama casharada soo socdo insha Allah taala ayaad ku baran doontaa qaabkay u shaqeeyaan barnaamijyadan iyo toolskan kale qaabkay u shaqeeyaan toolskan dhan waxaan oo balanaa darsiga xiga waxaan idinkaga tagayaa asaasi nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.